السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan idiin hayaa sheeko cajiiba oo run ah, qiso cajiib ah oo ku cibro qaadasho mudan, cibro ku qaadasho aan caadi ahayn. qisadu waa af carabi, waxaan idinku turjumay af Soomaali. kelmad kasta oo ku hadlay ninka aad ku arki doontaan videoga, kelmad kasta oo af carabi ah af Soomaali waan idinku turjumay. waa qisad aad u xanuun badan, waana qisad run ah oo ka dhacday dhowr sano ka hor magaalada Jeddah ee waddanka Sacuudiga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا مركز تاجوك توان سلامي. الشيكة عاوة والشيكة أف عربي أف سومالي ماني نقول ترجمي إن شاء الله، ولا لفر بدن بيقول أف سومالي نقول ترجم. والشيكة عجيب أو عبر لقاقاته، عبر يادوين لقاقاته وحكون سبسنتها النبسية يو ظلمها إنه سنهين ظلمه واحد سهل أماها، ظلمه واحد يادوحون وينو ترجمي مركا إن شاء الله بالشيكة اللي دقيسته. أخيارتا محترمينتا قفكي كعسب كانالكين رجو أكاديمي أوفيشال waxaan ka codsanaynaa fadlan walaysa amran inuu badhanka subscribe-ka click ku siiyo gambalilka halka aanu ka aragnaa ka ugu horeeya ay ku qorantay all click ku sii si wax kasta oo cusub aan sameeyo uu ku soo gaaro insha Allah. hana ilaawin inaad support ina siisid adigoo ku dhufanaya badhanka like si uu kanaalku inuu kala kaco, kuna dhufo badhanka share si aad ula wadaagtid ummadda oo looga wada faa'iideysto video. comment-yadana igu soo qoray insha Allah. أصحابتا قالي أنا مركان كومنتيدو ده حقيقة آدبان وفرحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخواني. هذه القصة قصة حقيقية. نينكي وكاسلانتو كبلابي وحويري شيكدني وشيكو رن يشهد الله ويشهد الله إنها بجنب المسجد وأتكلم بهذه القصة حقيقية. إلهينا الشهيد وإيجي هاي أنا شيكدن إذا كشيكينا إن المسجد كأكتشو منك وأنا شيكو رن مسؤول من بلدية أبي عريش، مسؤول كبير. وحكار لي يعني مسؤول oo ka mas'uul ah xaafad ku taala magaalada Jeddah ee Sacuudiga ka mas'uul ah ayuu ka sheekeynaya. فالبسطة فمر على واحد يبيع تمر. mas'uulkaas wuxuu yimi meel suuq weeye, suuqa waxa lagu iibiyaa waxyaalo fara badan, waxa kamid ah timirta. marka uu soo agmaray suuqii nin miskiin ah oo timirta iibiya oo meesha fadhiya ayuu soo agmaray. waa ninkii mas'uulka ahaa saale wuxuu ku yiri ka kac meesha oo timirtaada la kac oo qaad timirta meesha laguma ogole. مر على الجماعة وقال لهم خذوا بضاعتكم من الشارع. nimankii kale ee moogtay meesha fadhiyay iyaga laftooda timirta iibinayeen ama waxyaalihii kale iyaga laftooda wuxuu ku yiri badeecadiina qaata oo kala kaca meesha. waa nin mas'uul weeyay la hadli kara. ابتعد ايش خذوا روحوا كلهم اخذوا الا صاحب التمر. nimankii oo dhan badeecadoodii way wada qaateen, kulligood way qaateen, badeecado kala duwan bay wateen, meesha way ka carareen. laakiin ninkii timirta iibinayay meeshiisii kama dhaqaaqin. جلس فرجع اليه قال meeshiisuu fadhiistay, ninkii uu soo noqday, mas'uulkii baa macnaha u soo noqday. كيف كلهم اخذوا التمر اخذوا مقاضيهم وانت ما اخذت مقاضي؟ wuxuu yiri warheeda nimankii meesha fadhiyay badeecadoodii alaabtoodii dhan way qaateen, adii maxaa ku fadhisay meesha? فقال له يا اخويا والله اني مستني، انا هون عندهم سيارة انا ما عندي سيارة، انا مستني راعي الدباب شيء الحين. wuxuu yiri walaal nimankani gaariyo ayay haystaan oo waa loo yimi, laakiin anigu gaarigii baan sugayaa lay keeni lahaa ee alaabta lagula qaadi lahaa, gaarina ma haysto. فقال له لا انت معاند. markaasuu ku yiri yaa may buu yiri run ma sheegaysid, anaad igu caanidaysaa buu yiri. waa gaari waad haysataa laakiin mucaanid baa tahay, macnaha anigaad igu caanidaysaa, anaad igu xumaynaysaa. فركل التمر برجليه. timirtii uu ninkii miskiinka ahaa iibinayay mas'uulkii muxuu sameeyey? timirta gebigeedaba wuu laaday, kartoonkii dhan buu laaday. فنثربوا على الرصيف. timirtii waxay ku daadatay dariiqii shaariciisa ugu daadatay. فالرجال لا حول ولا قوة إلا بالله استغش على حقه لكن ما رد له. ninkii miskiinka ahaa ee timirta laga daadiyey wax uu ku hadlu garan waayay wuu iska aamusay. لا حول ولا قوة إلا بالله استغش على حقه لكن ما رد له، خلاها في نفسه. قال لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. حسبي الله ونعم الوكيل. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ninkii miskiinka ahaa wax kale ma oran, wuxuu yiri laa xawla walaa quwwata illaa billah xasbi allah wa ni'mal wakiil wa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. wax kale ma oran, inta kale buu yiri. الرجال هذا قال له أنا حارجع مرة ثانية، إذا لقيت عادك واقف حيحصل لك شيء مو كويس. mas'uulkii keer ma siin, ninku wuxuu yiri waan kaa tegaya haddaan soo noqdo adiga oo meeshii fadhiya is ilaali, wax kugu dhici doonaa waad ogaan doontaa. waa u hanjabay. أقرمك حصل لك شيء مو كويس. wuxuu yiri qaraaman kaa qaadaya, lacag baa lagaa qaadaya, wax xun baa kugu dhici doona. فمرة فدق برجليه في الرصيف اللي في البلدية، دق برجليه في الرصيف. سبحان الله. ninkii baladiyaha mas'uulka ahaa markuu ka tagay ninkii uu xoogaa socday, sibirka meesha sibirka dariiqii u marayay lugtuu meel ku dhuftay. فوجع شوي قال لا هذا حاجة بسيطة. wuxuu yara dareemay xoogaa xanuuna, markaasuu wuxuu yiri waa iska basiid, wax dhibaataa ma taas, xanuunkaas waxa ma aha. روح البيت يتألم
gurigii markuu tagay ninkii mas-uulka ahaa wuxuu dareemay xanuun aan caadi ahayn buu dareemay xanuun cajiib buu dareemay من هذه الدقة في رجله فقال له أخويا أرجوك يا أخويا أرجوك يا أخويا أن تذهب بي إلى المستشفى أنا تعبان walaalkii ku yiri walaal guriga isagoo jooga mas-uulkii walaalkii walaal lugta aad baa layga hayaa maanta meel baan ku dhuftay aad baa layga hayaa si degdeg ah dhakhtarka ii geeya تاكلني wuxuu lugtii baa cuncunaysa buu yiri فراح بالمستشفى مستشفى عام في جدة فكشف عليه فقال wuxuu geeyey dhakhtar ku yaala magaalada Jadda ayuu geeyey si lugtii waa loo baaray عندك غرغرينة داخل رجلك تاكل رجلك subxaan allah wuxuu ku yiri cindak qarqariina yani waxaa lagaa helay jidhkaaga waxaa ku jira wax la yidhahdo qarqariina qarqariina waxa weeye waa cudur ay bacteria keenta ingiriiska waxaa lagu yidhahdaa gangrene weliba gacmaha iyo lugaha bay badan ku dhacdaa waxa weeye sababtuna waxa weeye dhiiggii baanan gaadhin meeshii loogu talagalay baanan gaadhin marka wuu qurmaysaa meeshii marka waxa weeye waa in la jaro dhakhtaradu way jaraa qof gangrene markay marxaladda ugu dambeysa gaadho waa la jaraa فقال له أخوه أنا سأذهبك مستشفى الرياض التخصصي walaalkii wuxuu ku yiri wareedhe meeshan inaga daa waxaan ku geenayaa dhakhtarka specialist ah mustashfa riyaad التخصصي فراح بالمستشفى التخصصي فكشف عليه قال له عندك غرغرينة تاكل رجلك داخل markuu dhakhtarkii specialistka u tagay waxaa lagu yiri wareedhe gargarina qabtaa lugtaaday cunaysaa فقصوا الأربع الصبابع حقه اللي قدام marka afartii farood ee lugta afarta farood ugu horeysa ayaa la jaray bal sheekadu si u socotaa waa cajiib weey wallahi subhanallah قصوها نهائيا لا إله إلا الله فبعد ما قصوها فعاد الألم يتعلم markii la jaray afartii farood haddana mar dambe wuxuu dareemay xanuunkii ku soo noqday isla lugta lafteedii يزيد الألم عاد yani wuu sii batay xanuunkii ku leeyahay ياكل رجله فراح البيت ورجع قال له يا أخويا رجلي عادها تألمني markuu guriga ku noqday uu ku yiri walaalkii walaal lugtii weli way xanuunsan maxaan sameeyaa فرجع إلى الدكتور نفس الدكتور التخصصي wuxuu ku soo noqday dhakhtarkii specialistka laftiisu ku soo noqday mar dambe وشوف يكشف عليها قال له لازم نقصها نهائيا dhakhtarkii markuu arkay buu yiri xal kale ma laha waa in la jaraa lugta waa in la jaraa نقصها من فوق من هنا نعم waxaad ka jaraysaa lugta ilaa inta ugu dambeysa ama inta ugu sareysa lugta oo dhan la jaro buu yiri kullu hala jaro yani lugta oo dhan wuxuu yiri hala jaro ilaa inta ugu sareysa hala jaro waa lugtii oo dhan wey macnaha والله العظيم قصة حقيقية ninkan waa dhaartay wuxuu yiri wallahi alcadiim qisa xaqiiqiya wallahi waa dhaartay buu yiri waa run sheeko run oo dhacday فقص رجليه نهائيا lugtii oo dhan waa la jaray subxaan allah قصها من فوق فقال له يا أخويا الله يرضى عليك أنت ظلمت حد marka ninkii buu weydiiyey ninka lugta laga jaray baa la weydiiyey warheedha walaal buu yiri walaalkii baa weydiiyey wuxuu walaal ma cid baad dulmiday maxaad samaysay waa maxay maxaad samaysay bal xusuuso فكان تدور على راسه يدور على راسه قال له نعم marka ninkii lugta laga jaray wuu fikiray madaxiisa ugu wareegtay fikradii markii dambe yiri ha waxba xusuustay صاحب التمر ninkii timirta lahaa buu yiri walle waa ninkaas قال له ماذا عملت له على التمر wuxuu yiri maxaad u samaysay maxaad ku samaysay ninka saaq ku habaaray macnaha u jeedaa maxaad ku samaysay قال لي والله العظيم إني آذيته wuxuu yiri wallahi waan dhaartay yiri ninka dhib baan u keenay buu yiri ninka رحت البسطة قومتهم كلهم راحوا بقوا هو جالس wuxuu yiri meeshii suuqii lagu iibinayay badeecada ayaan tegey dadkii waa ku qeyliyay dadkoo dhan way tageen isagu bas ka fadhiistay meesha sheekadii uga sheekiyey فرجعت إليه فقلت له مالك ما أخذت حقك waan u soo noqday buu yiri waxaan ku maxaa u qaadan weyday timirtaada dadkoo dhan way tageen التمر حقه برجلي markaasaan lugtiisiiba timirtiisiiba laad intaan sanduuqii kartoonkii ku jirtay timirtu baan laaday timirtii baan ka daadiyey وكل التمر حقه برجله فقال له فقال timirtii waa ka lugtu ku laaday timirtii ninkaa miskiinka u iibinayay الله يا أخوي اركب ركبوا السيارة برجلة واحدة برجل subxaan allah markuu sheekadaa dhameeyey gaarigii baa la saaray walaalkii baa yiri warkaale kaale gaariga soo kor wuu caawinay miskiin lug dhanba laga gooyey wuu caawinay walaalkii gaarigii buu saaray lug keliya walaalkii baa qaaday ninkii lug keliya la gaarigu saaray واحدة ركب مع السيارة قال له لازم ندور لهذا الإنسان wuxuu yiri keen gaariga ku saaraya iminka waa inaynu ninkaa insaanka miskiinka aad dulmiday waa inaynu ninkaa helaa ندور له فذهب إلى البسطات وراح سأل عنه meeshii suuqii buu tegey badeecada lagu iibinayay ninkii buu raadiyey أبغى فلان السلام ورحمة الله salaamu calaykum war ninkaa ma taqaanin قال له أبغى فلان اللي كان صاحب التمر هنا waxaan rabaa ninkii miskiinka ahaa ee hebel timirta ku iibin jiray ninka ayaa garanaya قال له في قرية كذا كذا
ووش يقول نيكا واحد كيلي ستولة ذهب لله يرهدو. فذهب هو أخوه إلى القرية وسألوا عنه. السجا يقول لك يبقى تجي التولة دي نيكي بالرهدي. وقال له على الباب فدق عليه. والله شيء جورجيسي الباب كيسو كراعي. فنيكي مسكين كانوا قالوا بالرهدي لي اعتبرت لها. قال له السلام قال له عليكم السلام. قال له تعال. قال له تعرف هذا؟ قال له نعم هذا أعرفه. وسلام السلام عليكم السلام وسوير نيك المتقانا ويرهاني كوانا قانا. اللي عاد حارقني في جوفي. واللي عاد حارقني. وقرنا يا بوير نيكا سونا حنون يعني حنون كويك يعني ولا حسنا يا بوير. صلى على النبي. قال له أخويا رحت بالمستشفى والآن قطعنا رجليه. وحيروا نيو ويرده ولا لك يدختر كان هذا كنمي لوكتي ودبا لقيت شرع. فالعالم عادوا فيه. ولي حنونكي هو هيا سوى لوكتي ودبا لقيت شرع حنونكي ولو هيا. فالله يستر عليك إنك تسامح. إلهك أستر ويري ولا لك يعفي ولا لك يسامح والروي بكون عليه ولا لك يسامح وتشجي له يسامح. فقال يا رب إني سامحته. الله يسامحك في الدنيا والآخرة. الله يسامحك ويبعد عنك الأذى والشر. مركز ويري يا رب ويري نينك مسكين كانوا تعي يا رب ويري إلهو شاهدك النقول نينك وين عفي نينك دوني آخر وين عفي إلهو حنوك كقات سبحان الله. فقسم بالله العظيم إن هذا الرجال فبكى فقال والله العظيم العالم راح. ودارتي وحوير والله مركي ونينك سدعيي وقعمه كرو تاغي وإلهي كدعيستي وإلهو نينك حنون كقاد ودارتي وحوير إسلام مركي نينكي حنونكي هيي مركي نقطة لترى انتي سي سعتي حنونكي واستاغي وير مركيبا. توقف الآلام وحويري حنونكي واستاغي. سبحان الله. وأنا أقول يا ناس لا أحد يظلم الناس. سبحان الله حويري دتكو أنه إذا لا تلينيا ظلمك إسكا إلالية ظلمك بني آدمك إسكا إلالية. لا أحد يأخذ حق الثاني. دتك حقوق دو يلا قادن دتك حقوق دو يلا دعن إذا نيك هذا دتكو ورنيا. لا أحد يشيل عرض الثاني. ورقفك قف دولك قادو إسلالي دول يلا كلا قادن. ولا أحد يقول فلان كذا وفلان كذا وهو بريء. dadkana waxba ha ka sheegin hore hebel waa ka hebel waxa soo sameeyay waxa isagoo bari qof bari oo miskiina dulmiga laga ilaaliyo. يا ناس اتقوا الله في أنفسكم إن الله يراقبنا جميعا. وحير إلهي كعبصدا اتقوا الله في أنفسكم إلهي وين أركا إلهي الله يراقبنا جميعا. استغفروا ربكم وتوبوا إليه وصلوا. إلهي وتوبت كينا وتكذا. وابتعدوا عن المحرمات. محرمات كحرانتها نسكيل عليها. ابتعدوا عن الدخان وابتعدوا عن الحشيش. كفوا هذا سيجارك وكفوا هذا حشيشك واحد دراكسك الدروجة. عن المسكرات وابتعدوا عن ما حرم الله. وحكست أو ماركتي سيدا خمري أو كلا يسكيل عليه يوحى وقتها إلهي رالك هين. ربي راقبنا جميعا. إلهي وين إيشو نقوها يا سبحانه وتعالى وين إيجي يا إلهي سبحانه وتعالى. لا تظلم أحد تقول فلان يسوي كذا وكذا وهو مظلوم. ورجع إسكيل عليه هذا ما تظلم أحد بير عندنا ظلم قف أو بس من أول الوحاسي وحاسمية. والله العظيم ربي راقبنا جميعا ما يأخذ إلا ربي حق المسكين. إلهي وين إيجي لما أنت إلهي نقفك مسكين كحق يسووك هنا. يا جماعة أقسم بالله العلي العظيم هذه القصة حقيقة وأنا عند بيت الله. نيكي مركز دارتي وحير إلهي وكو دارتي شكر وشكرون قريق إلهي لو هرتاجنا وأنا دارتي. إذا كان أنتم مصدقوني فأسألوا محمد أبو جبل. وحيري قف دتكو شيء وشرحي أصحابه وجوبي وحيري هديدا الروميسان أتجا نيكلا محمد أبو جبل في الجامع بالصبا في الجامع الجمعة اللي فاتت. وشبعي هوري أيوب مش تشوفي. ربي يحفظكم ويستر عليكم. جزاك الله خير. والله يوفقك زكي وربي يحفظك ويستر عليك ويفرح الله أمك ويفرح أهلك وأخواتك إن شاء الله وتتجوز وتحصل لك عيال إن شاء الله تفرح بون إن شاء الله. الله يوفقك زكي. جزاك الله خير. نيكي ودعي دعو كل ما يمشى. مركا ظلمك إلهي سبحانه وتعالى أيا حرمي الظلم الطغيان واد مقشين كلمة الطغيان وحوية ومركا الظلم وحداف قالوا الطغيان طاغية كلمة الطاغية واد مقشين مثلا قفلوا لي بي حكم ومثلا دولتك مسؤول والله يرادوني كسوا طاغية وحكست اسكا قادنيا وحو ربو سمينيا وددكو ربو حسينيا طغيان سياسي حكمك اما سياسة اما ماركتي ود قفك ود ماركتي هيستا دولة حكومة ما اوغا inay fitnad tahay waa fitna kabiir weey markuu qofku xaakim noqdo waa fitnad weey khulafadii ridwaanullah alayhim khulafadiini khulafa ar-rashidin markaad keentid mesela Umar ibn Khattab oo kale
عمر الخطاب وأبو بكر الصديق رضي الله عليه يكوي كلا خلفاء كلا ويكبق جرين إن السلطة أما باوركا خلافة ذا اللي سيوي يكبق جرين ومد كاستهبين كيور الماركتي وحساب تنشري معد بان دولمي معد بان waxaa ku sameeyay habeen maalin laano way garanayaan waa lagu weydiin doonaa maalinta xisaabta dadka ugu xisaab badan waxay dadka moogtahay mas'uulka مثلا ama qaadi ha noqdo ama xaakim ha noqdo ama police askari ha noqdo mas'uul meelka ah ama ha noqdo qof adigu uu mas'uul ah hatta waalidka marka mas'uuliyad way ayado far badan oo quraanka ah buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku adkuray dulmiga xadiis badan baa jirta oo ku sharaxaysa dulmiga waxaana ugu caan ah xadiiska qudsi weyn sallam yiri waana xadiis caan ah oo leeqaan ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadhalimu ilaahi ba ibadkiisa kule ana ba nafteeda ka xaramay dulmiga macnaha ana ba bacidna dulmayn marka idinku dhexdiina has dulmina fala tadhalimu waa xadiis ajiib weeye waxa ka saa dawlado daciif ah oo faqiir ah oo dawlado kale waxay ugu deeqeen lacag ama cunto ama wax ay ku caawinaan waxa laga yaabaa wixii ay dawladdaas siisay in ninka ka mas'uulka ah meesha inuu isaga iyo dadka la shaqeeya ama dadka u dhow ama dadka ahladiisa inuu kala qaybiyo waana ka dhacday dawlado fara badan oo wax lagu caawimay in ay raggii mas'uuliyiinta ahaa ee lagu talagalay inay waxa u qaybiyeen dadka masaakiinta ee faqiirka ah inay iyagii bilaqaysteen taasuna waa dhulm weyn oo marka wixii uu qaadanaya isagu mooga in ilaahay ishiisu ay aragto mooga waxa ka saa dad bilaqaysanaya dad masaakiina guryahooda inta dawlad fara badan bay ka dhacday dad masaakiina dagaal baa dhacaya xarb ahliya dhacaysa wala isdilaya isku kacaya dad masaakiin ah oo guryahoodii xoog laga qaado arkaysa oo waraqo been la samaystay oo maxkamad loo tago leeyahay guriga anigaas kala qofkii guriga hana waa nool yahay oo 24 saac wuxuu ku wareegaya maxkamada kii guriga qaatayna uu arkaa warqad been u sameeyay laakiin ma arko inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala isha ku hayo beero waxa ka sadan laga beelqaystay beero ama xoog laga qaatay waa tuqyaan yani taaqiya xoog nin moogtay mas'uul ah xoog ka qaadaya waxna ma oran kartid waxa weey bas maxkamadda adduunka hadii wax ku tarin maxkamadda akhro weey maxkamadda akhro ka duwanta maxkamadda adduunka waxyaalo badan baa jira oo la isku dulmo hadda ninka miskiinka ee timirta meesha ku yimid ninka waxa laga yaabaa inuu caruur yar far badan haysto oo uusan meel kale uu maaragtay macaash uusan meel kale ka helin oo ninka mas'uulka ah awood buu sheegtay xoog buu sheegtay xoogii uu sheegtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ninkaas markuu ducaystay waa aragtay wax ku dhacay waa nafsi marka awood isku arka laakiin ma arko awoodda Ilaahay oo ma muuqato waa kan dhalay awoodda Ilaahay ma arko laano qalbigu kan dhalay laano qalbigiisa waxba arag subhanallah Soomaalidu waxay jirtay nafsiga diin baa qaada macnaha waa aad buu gaabanaya diinku macnaha nafsigu waqti dambe ayaa laga yaabaa nafsiga dhaco laakiin hadda waxay leedahay nafsigu waqtiga aynu joogno dabeel baa qaada nafsiga dabeel baa qaada bal ninkaasu markuu duceystay isla markiiba subhanallah Ilaahay waa u istijaabay ducadiisii marka dulmiga la iska ilaaliyo waa muhiim weeye Ilaahay ishiisa in aragta akhyaarta halka waxaan idin soo dhigay aan farta ku fiiqayo laba video oo muhiim ah ka ugu horeeya weeye waa taariikh cajiib ah oo laga yaabo inaad hore u maqal videoga daawo oo ka faa'iideyso videoga ka hooseeyna waxa weeye waa ceelkii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu madiina yimi uu ka cabay iyada lafteedu qiso aad u qurux badan weeye insha Allah labada video ii daawada insha Allah hana ka ilaawin videoyada inaad like saartaan siina share gareysaan waana walaalkii Axmed Aadan oo idin leh hayaakum Allah biyakum wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh